haddii aad leedahay calaamadahan soo socda waxaa tahay qof aad u caqli badan. daraasad la sameeyay ayaa lagu ogaaday dadka caqliga u saaxiibka ah ee IQ-ga maskaxdooda aadka u sarreeya inay leeyihiin calaamadahan soo socda ee adiga laftigaagu haddii aad leedahay calaamadahan commentiga hoose iska soo xaadiri. Soomaali ayaa u baahan dad caqli badan oo u taliye. dabeecadda koowaad qofka aadka u caqliga badani ma laha saaxiibo fara badan, waa qof keli socda oo gooni goosada. waa qof dadka oo dhan aysan isfahmin oo aysan isla jaan qaadin. sababtuna waxa ay tahay ma helo dad ay isku fikir yihiin oo ay isku heer maskaxeed yihiin. dadkana waxa saaxiibo oo kaliya dadka heerka IQ-ga maskaxdoodu ay isku soo dhowdhow yihiin. qofkani maadaama IQ-ga maskaxdiisu yahay mid aad u sarreeya ma helo saaxiibo fara badan oo ay isku si wax u wada arkaan oo ay isku fikir noqdaan. taasi ayaa ka dhigta inuu noqdo qof keli socda oo gooni goosada. dabeecadda labaad qofka aadka u caqliga badani waa qof markasta dareema welwel iyo walbahaar fara badan. sidoo kale waa qof wax iska weydiiya mustaqbalka iyo waqtiga soo socda. sidoo kale waa qof haddii hawl loo diro ama shaqo loo diro sameeya isbarbardhig, maxaa faa'iidaa maxaa khasaara. waa qof maskaxdiisu aysan nasan oo mar kasta ay fikirayso oo ay howlan tahay oo wax kasta oo loo diro noocay kasta ay ahaataba ka fikira oo wax iska weydiiya oo maskaxdiisu aysan nasan. waana dabeecad ka mid ah dabeecadaha ugu waaweyn ee lagu garto dadka aadka u caqliga badan. dabeecadda ku xigta qofka caqliga badani waa qof aamusnaan badan. dadka caqliga u saaxiibka ah ma murmaan, ma doodaan, mana qayriyaan. waa dad aamusnaan ku dhameeya wax kasta. aamusnaantuna waa astaan ka mid ah astaamaha lagu garto dadka caqliga u saaxiibka ah ee caqligooda aadka u sarreeyo. dabeecadda ku xigta qofka caqliga badani ma kala jecla ammaanta iyo dhaliisha. qofka caqliga badani haddii aad ammaanto iyo haddii aad dhaliisho ma kala jecla. laakiin kuwa caqliga yar astaanta lagu gartaa waxay tahay waxay aad u jecel yihiin buunbuuninta iyo ammaanta. laakiin kuwa caqliga badani ma kala jecla in la dhaliilo iyo in la ammaano. sidoo kale dadka caqliga badani waa kuwo dareemo badanaa xorriyad darro iyo cidhiidhi fara badan maadaama ay heerka maskaxdoodu tahay mid aad u heer sarreysa oo si aad u fikira. dadka caadigaana sidoo kale aan u fikirin markasta waxay dareemaan inay ku jiraan cidhiidhi iyo xorriyad darro. sidoo kale dadka caqliga badani kama cabsadaan guuldarrada. waa dad ay isku mid tahay guusha iyo guuldarradu. sidoo kale waa dad aan ka welwelin waxa hadhow toole dabadooda laga odhanayo. dadka caqliga badani kama welwelaan waxa ay dadku ku odhanayaan hadhow toole iyo fikrada dadka kale maskaxdooda ku jira. waa dad heerkaasi dhaafay oo ka gudbay oo aan kala jeclayn waxa dadku hadhow toole ku odhanayaan ama waxa hadhow toole dadku dabadooda ka odhanayaan. kuwo waxaasi isku hawlo maaha. sidoo kale dadka caqliga badani waqti badan kuma lumiyaan in ay raadiyaan saaxiibo fara badan iyo inay helaan asxaab fara badan iyo inay bulshada dhex galaan. waa dad farxad iyo degenaansho ku dareema kelinimada iyo gooni socodka. haddii aad leedahay calaamadaha aan soo sheegay waxaad ogsoonaataa inaad ka mid tahay dadka caqliga u saaxiibka ah ee adduunkan korkiisa ilaahay keenay.